kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba dadweynaha ka joogtaan ku soo dhawaada qaybta koowaad ee tobtanka muuqaaladii ugu waalnaa siyaasi Faysal Cali Waraabe haddaba daawadayaal intaan barnaamijka idin soo gudbin haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo taaba subscribe gambaleelka si barnaamijyada xiisaha leh aan soo gelin doono aanay ku dhaafin sidoo kale ha ilaawanad fiidiyogan like saarto wixii falcelin ama talo yaray ahna hoos nagu reebto hadduu muuqaalku ku cajabiyo ha ilaawan inaad la wadaagto asxaabtaada waanad ku mahadsantihiin dhammaan sida quruxda badan ee nagu xidhan tihiin daawasho wacan محمد سعد بلاوي فيدي ما تشرت هو وريري بيوريري waxa la ilaha inuu wax la dhaxo koreed haduu guntiga ku galo koomeel buu ka qaniini wariiriga anaga macawis ugu dili doona insha Allah ta'ala hadaan joogsid ableheeni yaryaraba looga heesiya xamar kuwa xamar tire yaryarna Facebook ku caaya waa khaainin waa dulli waa waxa dalkoodii dadkoodii jiray u tagay waa inaynu Facebook ka dhignaa fidmo dad uriya oo xumaaday oo inaga xumaaday ka sheeg walaalayaal dalkii oo dhan waxa ka socota warfarmaajo iigay wax la yiraahdo waxa soo dhacay ii kaadad waxa soo dhacay Faysal iigay maad maqan tuu protest vote buu helay moogtay oo niman la nacay oo dhul iyo cidba laga dhacay iyo ku xumay isku xumay ayaa ta keentay waa gartay laakiin waa nin badweyn ku jira Soomaaliya kale dadka aan xilkeen waxaan bilaa fiisa ku yimaade laakiin nin xil haya oo siyaasi marka la arkay ku balbala iska dhex socdaan ma hargeysa de waxa weeye nin kristaan oo kale diintii fadhiyo ma ogaan sanadii nin kristaan diin fadhiyo mabdii Soomaali weyn buu fadhiyaa oo dadka naga waalaya tabaka waan qabanaaba weey waxaa jirtay in nin wariye ah dhinacana musaacadada ka shaqeeya oo ina coldoon oo muqdisho ka yimid mar alla markuu ka soo degay hargeysa waa la xiray anigu tooga leh aawad dimuqraadinimadii anigu haddaan ahay marka dawladda jecsan tahay muxuu sameeyay isagu muqdisho tagay wuxuu ka sheekeeyay wixii dhacay manika farmaajo u heesay haye heesta amaanta u qaaday laakiin aawad dimuqraadiyadii security wixii khatar ku haya waan xirina de kolba wad ogtiino mid NGO yar haysan jiray oo kolba ka dhigan madaxweyne tamay laga soo qaado ninkan la yiraahdo khayre isaga idmay dooran wuxuu leeyahay walaa doortay Soomaali doorto ayo hilkooda xitaan dooranay wala magacaabay magaca madaxweyne farmaajo insha Allah ta'ala ka wada xiriirina ya dadkii wax xukumi jiray ma ogtahay anoo ninkan awslaa hadiis ku qaadan meena awska iibin jiray kuwaan isaga eegina wuxuu awood u leeyahay ka yaray magaalada NGO ka shaqeyn jiray Norwich Refugees and Council ka shaqeyn halka inala joogay waa daayeer weeyaan kursi aanu qalin la saaray Ethiopia dadkana waa lagu dhibaa waa lagu humiliate gareeyaa dumarkeena u badan dad ka wada waan kala hadalnaa safiirka Ethiopia laakiin wali abuse ku socdaa waxa weeye dawladda Ethiopia ayaa xuduudda ka mas'uula federal government-ka marka ka tarawdid tago jaale waxa baasaboorka ay dukumentka ee dawladda federaalka laakiin waxa weeye iskala ka shanaad askar yar yar oo leeyahay isku dhaxay new police oo isku wada reera oo isku jira magaalada saychik boysintoodu isku jira maxaa oran karaa 5 kilomitir ay dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan ina amarka reer qura ku atumo ku tunto oo dadka kale ku abuse gareeyo wax la ogolaan karo ma dawladdu waxaan sheegaynaa in arrintaasi ay ka dhicin karto in qabailku isdilaan aanu qabiil ma xukumi karo no reer xukumi karo dawladdu isku shaar u gaashado tii Maxamed Siyaad Bare ayaa lagu arkay wixii ka raacay wadi ogeed lagu yaqaan madaxda Soomaaliya in mar kastaba gacanta wax siisay qaniinaan waa caado ay yaqaanaan tii bay ku celiyeen muma kala harin dalka Imaaraadka oo ahaa dalka qura ee Carbeed ee inoo furay khadka markii dawladda Siyaad Bare burburtay ee Soomaaliya isku qasantay baasaboorka ogolaaday baamisharigeeni furay oo maanta aragtaysa inta baamisharaga joogta dekedeena camiray
haddana macaawino ugu daray Soomaaliya in saa loo galana oo dadka iyagoo dawlad ahayn waxaasoo lacaga siiseen waxaasoo tababara siiseen maanta taayid ku abaalgudayna waan ka xunahay lama qaybsano marka waan inshallah mid ka nahay ceebtaasna waa ceeb ku kooban Soomaaliya dina horaan u sheego waxaan yidhi qofka waxba ahayn baynu ka dhignay hero inanta yar iska muraaqootay qabla xabxabka in horta laga dhiga hero maaha mad aragta weli inan yaro reexa maro inoo ooyso tiri Soomaaliya waa la laayo ooyso mar maxay naga wixii ka dhigay bilaa micna iduguna dhalinyarada bilaa micna joojiya dawladuna waxaan qof bilaa micna oo aqli yar inay wax weyn ka dhigto oo sharaf loo tamam xarig ma beestaalaan haday xamar jeceshay ha joogto ay naga soo doonaysaa xasan sheekh dalkeeni waa u qaybiyay inay waxa weyn naga dhigay dawlad goboleedka lixaad ee Soomaaliya oo dhan iyo Soomaaliland isku daray wixii guddiga waxaa sameeyay doorasho 22 xubnood ka kooban laba xubnood wixii waa Soomaaliland laba xubnood wixii waa Puntland way ku jiraan Soomaaliya sanad ilaa bay ku dhahay wana askaas ilaahay ku dhahay doonada hagaajiyo xasan sheekh oo aabihi talin jiray oo ugu shirin jiray oo si qalala u furay meesha ayaa maanta kale Soomaaliya sanad la ilaahay ku dhaartay waxaan talin jiray ma ku talay waxaan arki jiray baa la arkaa waxaan talin jiray markabka uu keeno ina online sibirka ay isku dili jireen awooyashaana xamaaliya madaxweyne laga dhigay maanta waxa ku hadlay ilaahay ku dhaaray wallahi markabkiina xamaal ku noqon doonto insha Allah ta'ala kan yara meesha qaynayeen kala waxaan audit habar gidir meel ayre وكي كاس كان لا دولة ما هذي يعني دولة هذه قرن معي ما نيك كهلي صوماليا يدي وحنا أنت دورها بدي قرن نور فرح بلا إله تولها كاس ناد يجا ويا ركوني ما كانوا يسوق قيليسي إتكسروا كشاعن طنطا ما كان كاسي أنتوا كتلين يو بربرة كوريسة كتلين وارهن مدوجو ولا عرفت لو سمعنا وحايستا صنع جماعة عدالة واحد شراء دولة قلت شيء واحد شوكتا كونفورتا بدلان باهيستا ميل ما هيسو تيسي بقى ما هيسني وكسو هاي بالبركة تانية وضدك وعقل حن تولق قرا كسمين وهي ما كسومالي كالبع بعضي تولق إليهين كسمين وهي مامل أي بالبركة تانية المغرب كيم يا رئيس وزراء لا قد لسه هيسي كوربشن كيس أدون كشي كيني وحكوا هالي هو عقل ومقرن إن اللي يوتهم مع شقينا قبصنا شقينا هو جود وحوي هو مركينا لكن لو تشوفوا معها ما دام إلا يعلم ما هذه لكن ما أنت لدرسي ولا هذي يعني وني مسكحل الكورين بس كسيون أنا ولا على يعشي ولا على كوكاتك سومال ما مدين كنا أنا مدين على مدين الحمر هم مدين البور هات كوكاس وهي البور كيل السوق بتاعي قشنا لقى سوق هذا ما خسونا يا سومال الآن ولا للمني ورحمن اسكت درسنا وخرت تقني تاني بتقلي واحد قف دكان كله يشوكي وان خسارة وان كادو في وان كاتجيا والله هاي سمع ولا هيك تيجي وان كاتجن هذا قبصة هنقول إسلام تي حابة قاعدة ويدا تتنا يوصل هذا هاي تسمع